السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داوديال إذ لهانتين بحلقاني ودافور تي في كسو دوادا وراركينا iyo warbixinadeena wararka iyo warbixinada waxa idin soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdirashiid. qodobada wararka aan ku haynana waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku wajahan magaalada Dooxa iyo warar hoose oo sheegaya madaxweynaha Kenya oo ka badbaaday isku daydil iyo waliba roobab qasaare badan dhaliyay oo saacadii ugu dambeeyay ka da'ay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. intaas waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu doorka roon haatan asigii fidsan. ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka dhoofay garoonka Aadan Cadde waxa ayna u duuleen wafdiga magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar. ra'iisul wasaare Khayre ayaa la filayaa in marka uu gaaro dalka Qatar in kulamo la qaato madaxda dalkaasi waxa uuna kala hadli doonaa xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii Qatar u kordhin lahayd taageerada ay siiso wadankeena Soomaaliya. Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale la filayaa inuu madaxda dalka Qatar kala hadlo sidii loo bilaabi lahaa mashaariic kala duwan oo horey dawladda Qatar u shaacisay inay ku fulinayso Soomaaliya. Khayre ayaa sanadkii hore dhagax dhigay dhismo laami ah oo isku xiri doona magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooyo ay dhisayso dawladda Qatar welina ma aysan bilaabin mashruuca lagu dhisayo wadadan iyo sidoo wadada kale isku xirta Muqdisho iyo Jowhar. dhanka kale ciidamada booliska wadanka Kenya ayaa shaaciyay inay gacanta ku dhigeen nin qorsheynayay dilka madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. ninkan oo la qabtay maanta oo Sabti ah ayaa isku dayay inuu shalay galo garoonka Nagura halkaasoo maanta lagu qabanayo xuska maalinta Madaraka Day. saraakiisha militariga ayaa sheegay in Aadan Gleif oo ah 22 jir ay shalay qabteen militariga Kenya hase yeeshee uu ka baxsaday. ninkan ma sheegin qorshihiisa hase yeeshee booliska ayaa sheegay inuu damacsanaa dilka madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo maanta khudbad ka jeedin doona garoonka. saraakiisha booliska Kenya ayaa sheegay in Aadan uu sanadkii 2014 ku biiray Islaamka sidoo kalena galay xarakada Al-Qaacida ee Al-Shabaab una ku noolaa xaafadda Islii ee magaalada caasimadda Nairobi. waxaa sidoo kale la socday nin kale oo ciidamada ammaanku sheegeen inay qabteen qabashada Aadan ayaa ka dhalatay markii laga shakiyay lana baaray aqoonsiga uu wato. ugu dambeyn deegaano hoostaga gobolka Nugaal ayaa la soo waramayaa in daadad xoogan ku soo rogmaday kadib roobab mahiigaan ah oo saacadihii la soo dhaafay ka daayay deegaanada maamulka Puntland. deegaanadan oo kala ah Sunajeef, Dangoroyo, Libaaxiyo, Xaaji Khayre iyo deegaano kale oo aad u tiro badan oo ka tirsan gobolka Nugaal ayaa la soo sheegayaa in daadad xoogan ay ku dhufteen 24 saac ee la soo dhaafay kadib roobab xoogan oo ka da'ayay jiidaha deegaankaasi. weli lama soo sheegin wax qasaare nafeed ah oo ka dhashay deegaankaasi hase yeeshee waxaa la sheegayaa inay jiraan guryo iyo deegaano kale oo ku burburay roobkuna burburiyay. magaalada Garowe ayaa sidoo kale roobkii shalay ku bilowday waxa uu soo gaaray barqanimadii saakay waxaana magaalada dhexdeeda qulqulaya daadad aad u fara badan. dadka ku nool xeryaha barakacayaasha ku yaala magaalada Garowe ayaa waxaa la soo sheegayaa inuu saameyn xoogan ku yeeshay roobka ka da'aya gobolkaasi. waad ku maasantahay daawashada wararkeena iyo warbixinadeena. haddaba haddaad ku cusubtahay channelkeena subscribe si ay kuu soo gaaraan wararkeena xiga.